abwaanka ayaa 6 nin oo ehel ahaa walaalana ahaa hal meel inta uu ku wada gowracay dhegta dhiigga u daray. habeen gelin dhaxaad ay tahay inta hubkiisii soo gurtay gaashaankiisana soo qaatay isagoo kaligiis ahna soo hulaabtay ayuu dul yimid raggii walaalkiis dilay. mididii uu sitay ayuu ku aslay, kadibna iyadoo meedkooda sida tarab u taxan yahay ayuu ka dhaqaaqay halkii uu ku dooxay. ku soo dhawaada qiso kale oo aad iyo aad u xiiso badan. walle ama jiitay laywa walle ama jiitay laywa ama jabad kakiina arus kaga jaraya. haddaba qisada maanta aan idin hayo waa dhacdo waaqici ah oo ka dhacda dhulka deegaanka Soomaalida ee xabashidu gumaysato. qisadu waxa ay qabsatay abwaankii weynaa ee caanka ahaa, abwaankii lagu magacaabay dhakhtarkii jaceylka Soomaaliduna wada taqaano ee Maxamed Cali Kaariye. abwaanka ayaa wuxuu ahaa abwaanada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan. abwaanka ayaa waxa uu leeyahay heesaha ugu caansan geyga Soomaaliyeed, heesaha loogu jaceylka badan yahay, aadka u macaan, walibana heesaha dabacsan ee jaceylka. dhanka wadanigan abwaanka kama marnaynin. qisada sida la sheegayo waxa ay ka dhacday deegaanka Sheegoosh oo ka tirsan gobolka Qorxey ee dhulka deegaanka Soomaalida. abwaanka weyn ee Maxamed Cali Kaariye walaalkii Bilaa Cali ayaa isagu waxaa si aad u fool xun u dilay rag ehelkii ahaa. dilka oo isagu ka dhashay inan iyo gabadh ayaa waxa ay ahayd mid aad iyo aad u fool xun. Soomaaliduna dhibka ka bilaabma gabdhaha sidoo ku demo aad bay u adag tahay. raggii Bila dilay waxay Bila u dileen si aad iyo aad u fool xun, ka fog xeerka dhaqanka Soomaalida iyo waliba tan xaakimka. inta ay gowraceen ayay meedkiisana ku dhul dhaanteeyeen. abwaanka ayaa isagu u cuntami weysay, qaadana waayay in walaalkii sidaa foosha xun loo dilo, waliba lagu dul maansoodo oo lagu dul gabyo. abwaanka ayaa isagu waxa ehelkii waxa ay isku dayeen inay la macaamilaan raggii walaalkii dilay ehelkoodii iyo waliba iyakaba. abwaanka iyo ehelkii waxa ay dooneen in raggii walaalkii dilay iyaga loo soo dhiibo, ama ha qisaastaano ama ha cafiyaano ama ciddaba ama maka ha ka bixiyaano, waxay noqotaba. saddexdii qodob ay meesha la tegeen waxa ay kala soo kulmeen weji gabax. abwaankii iyo reerkiisa waxaa loo sheegay in raggani aysan Bilo u dhigmin, loona dhiibeynin, magna laga bixinaynin. xaal iyo xumeenba waxay doonayeen meel cidla ayaa lagaga dhaqaaqay. abwaanka isagoo ciil iyo calooyow la taahaya ayuu deegaankiisii ku soo laabtay. rag xaaje kama dhammaatee abwaanka waxa uu qaamqaamiyey siduu walaalkiis dilka foosha loo geystay kaga falcelin lahaa uguna argudi lahaa. haddaan dhulkanoo ku joogo, haddaan dhalashooy ku sheegto, haddaan dhaqashooy ku doono, haddaan kaa dhoofi waayo. abwaanka ayaa habeen inta gaashaankiisii iyo hubkiisii soo gurtay ayuu u dhaqaaqay halkii ay joogeen raggii walaalkii dilay. inta uu u yimid ayuu meel ku wada gowracay, dhegtana dhiigga u daray. 6 nin meedkooda halkaasi kaga tallaabsaday. inta meedkoodii taxay ayuu isaga dhaqaaqay halkuu ku dooxay. siduu gabaygiisii ku sheegay, deegaankii waa isaga soo tegay, waa una ka soo baxsaday. walaalkii wuxuu ugu arguday 6 nin oo wada dhashay ehelna ah. abwaanka ayaa isagu soo baxsaday magaalada Hargeysa, kadibna kaga soo gudbay magaalada Muqdisho. cid ka daba timid toona ma laheenin. labada ehel ayaa markii dambe ka heshiiyey maadaama dad isu dhaweey ahaayeen wixii dhacay ee foosha xumaa. abwaanka Maxamed Cali Kaariye walaalkii Bile xataa isagoo u dilay 6 nin ugu arguday waa uu ka samri waayay. dhacdadaasi foosha xun waxay ku noqotay utun qalbigiisa ka go'in. abwaanka ayaa xilliga dambe waxa uu ka sameeyay qisadaasi riwaayad dhan oo lagu magacaabayay
guur ama guurso dadka faalleeya suugaanta Soomaaliyeed waxay sheegayaan in labada kelimad abwaanku naftiisii kula hadlayay xilliga walaalkii la dilay isagoo kelimada guur ay ka dhigan tahay isaga tag dhulkani waxba kama tiidi maadaama walaalka hortaada sidaadii foosho xun loogu dilay waxna aad ka qaban weysay ama guurso oo ka wada ayaa la leeyahay falka u argud walaalka oo dadkii dilayna dhigta dhiigga u dar abwaanku waa uu sameeyey riwaayadaasi dhan waxay ka sheekeynaysaa qisadaasi isagoo si maldahan oo suugaan Soomaaliyeed ahna kaga sheekeeyay hees aad u macaan badan oo ka sheekeynaysa markuu qamqaaminaya dilka 6 nin ee walaalkii dilay ayaa waxaa wada qaada Maxamed Axmed Kuluc iyo Saade Cali heestan waxay u dhaceysay sida tan allahayu jidbaaliyo sidii jibaadi beerdhiga hay jabinin cadowga iga soo horjeeday allahayu allahayu jidbaaliyo sidii jibaadi beerdhiga hay jabinin cadowga iga soo horjeeday allahayu allahayo jirkay isku meel ma joogne jacaylka la kala raray allahayo jirkay isku meel ma joogne jacaylka la kala raray hawlahan janjeer samay sideenu jahiya hawlahan janjeer samay sideenu jahiya naf yahay jiid amba ka joog jar baa ka horeeye walle ama jiitay laywa walle ama jiitay laywa ama jabad kakiina aroos kaga jaraya ama jabad kakiina aroos kaga jaraya الله خيو جعيكنا ويجمع يا ريستو سيدو قيسو تشيرو الله خيو جعيكنا ويجمع يا ريستو سيدو قيسو تشيرو نفي هيشوق أما تشاق كتشواب ساشا واللي أما تشائري تالي واللي أما تشائري تالي أما تريشك عشقنا جلبين haddaba qisadaas ayaa waxay ka mid tahay qisooyinka caanka ka ah geyga Soomaaliyeed
dad kale ayaa waxa ay sheegaan 60 nin uu abwaanka dilay inay ahaayeen ogaadeen laakiin ogaadeen oo iyagu diidan in nin qudub ah uu 6 nin ka dilay ee qisada ah in abwaanka ehelkiisu ay ahaayeen dadkii uu dilay ay soo abaabuleen laakiin dadka xogogaalka ah waxa ay noo sheegeen in dadka isdilay ay wada ahaayeen beesha Shiiqaal gaar ahaan qudub abwaanka ayaa isagu hees kale oo la yiraahdo Allah ilahe balaayoy oo Maxamed Axmed Tubucul uu qaado wuxuu ka sameeyay dhacdadii bile ee uu tunta abwaanka ku noqotay Allah ilahe balaayoy badbaada haysto Allah ilahe balaayoy wahday adigo ku baaqay wanas Allah ilahe balaayoy badbaada haysto Allah ilahe balaayoy wahday adigo ku baaqay wanas Allah ilahe balaayoy hadayna baaduy Allah ilahe balaayoy ninka ku birdigine ka baxsaday dawaafulay Allah ilahe balaayoy laysku baaray taraata laygana jid bixi waa bilata kama samraaye laygana jid bixi waa bilata kama samraaye walay baadi umaha ubiyay sanaya walay baadi umaha ubiyay sanaya Allah ilahe balaayoy ninka baqaasha awgeed Allah ilahe balaayoy intiisa ka galay bari waa adduunkii Allah ilahe balaayoy ninka baqaasha awgeed Allah ilahe balaayoy intiisa ka galay bari waa adduunkii Allah ilahe balaayoy ninka xukubaani Allah ilahe balaayoy badni sheeganaaye isbidaal kuwa Allah ilahe balaayoy ninka xukubaani Allah ilahe balaayoy badni sheeganaaye isbidaal kuwa Allah ilahe balaayoy laysku baaray taraata laygana jid bixi waa bilana kama samraaye laygana jid bixi waa bilana kama samraaye walay baadi umaha ubiyay sanaya walay baadi umaha ubiyay sanaya haddaba heestaasi halkaas aynu kaga gudubno haddaba daawadayaal qisadeeni maanta
halkaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa qisad kale oo aad u xiiso badan oo tan la mid ah ama ka duwanba intaynu dib dambe ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabaadiina nooli kulanti iyo ammaano allah.